maalmaha soo socda iyo xilliyada ama saacadaha soo socdo ilaahay idinkii war weyn oo ku faraxdaan oo idin farxad gelin doono idinkana qaadi doono dulmigii la idinku sameeyay ayaa wadada ku soo jiro heegan u ahaada ciidamada Koonfur Galbeed soo dhaweeyay meel walba jaha kasto ay kaga imaanayaan magaalada Baydhabo hawlgallo lagu sifeynayo kuwa duulaanka ku soo qaaday dalkeena burburiyay dawladnimadeena duleystay dadkeena kufsaday hablaheena baabi'iyay guryaheena qaxiyay dadkeena ayaa ka bilowda Koonfur Galbeed labadii cisho la soo dhaafay gaar ahaan magaalada Baydhabo Koonfur Galbeed waxa duulaan lagu soo qaaday muddo bil ka hor iyadoo la burburiyay dawladnimadii Koonfur Galbeed hay'adaheedii kala duwanaa iyo shacabkii reer Koonfur Galbeed Soomaaliya la weeqay midnimadooda iyo wada jirkooda waxaan rabnaa inaan baaq kooban halkan uga soo jeedino dadka reer Koonfur Galbeed meel walba ay joogaan walaalayaal waxaan nagu kalifay anagoo ah mas'uuliyiintii dalka reer Koonfur Galbeed inaan hawdka u soo baxno waxaan diidnay in dadkeena la dulaysto la gumaado la baabi'iyo anagoo deegaanka ka soo bixin baan horay u baaqnay maantana anagoo banaanka joogno oo rabna dadkeena iyo deegaanadeena inaan dib u xurayno mar kale baaq idinku celinaynaa waxaan u baaqaynaa dadka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo dawladda Koonfur Galbeed ciidamadeeda daraawiishta nabad sugideeda iyo hay'adaheeda kala duwan ee ka dhiidiyay dulmiga duurka u galay waxay joogaan hareeraha magaalada Baydhabo waxa lagu sheegay inay doorasho Baydhabo ka dhacayso 10ka bishana waxaanu sheegaynaa inay doorasho ahayn dalku madaxweynuhu leeyahay hay'ad dastuuriya oo dhisan buu leeyahay waxaan leenahay walaalayaal hawlgallo lagu sifeynayo kuwa duulaanka ku soo qaaday dalkeena burburiyay dawladnimadeena duleystay dadkeena kufsaday hablaheena baabi'iyay guryaheena qaxiyay dadkeena ayaa ka bilowda Koonfur Galbeed labadii cisho la soo dhaafay gaar ahaan magaalada Baydhabo waxaan ugu baaqaynaa shacbiga aan jecelahay reer Koonfur Galbeed waana amnigooda horumarkooda iyo dhaqaalahooda ka shaqeynaynay mudooyinkii la soo dhaafay inay ka foojignaadaan kana fogaadaan goobaha ay ka socdaan operation-nada lagu sifeynayo cadawga dalka ku soo duulay oo midibada kala duwan leh waxa lagu sheegay inay doorasho yihiin ma aha doorasho wax la rabo in la idinku dulaysto cid la idin keenayana waa cidii la rabo in la idinku gumaado marna ha aqbalina hana u soo bixina hadii Ilaahay idmo hay'adaha Koonfur Galbeed waxay beegsan doonaan qof walbo oo loo arko inuu dawladnimada Koonfur Galbeed horena u burburiyay haddana burburkeeda faraha kula jiro meel kasto naga galo waa ka daba tagaynaa waana beegsanaynaa shacbiga reer Koonfur Galbeed oo isaga fogaada goobaha halista ah waxaan horeba u taagnay inaan naftiina badbaadino haddana ma rabna anagoo cadawgaas dalka ku soo duulay kala dagaalamayna deegaanka inay dhibaato idin soo gaarto sidoo kale waxaan u baaqaynaa ciidamada kala duwan ee reer Koonfur Galbeed kuwa diiday dulmiga dadkooda loo geysanayo ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo nawaaxigeeda inay si degdeg ah u soo xaroodaan kuna soo xaroodaan xaryaha ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baydhabo iyo hareeraheeda si dulmiga si wada jira aan isaga qaadno dalkii cadow baa la wareegay qof ka soo cadowga deegaanada Koonfur Galbeed ku soo horkaco tala ka siiyo dhaqaale ku bixiyana target buu inoo yahay waana weerari doona meel uu nooga badbaadaya malaha idinkuna diidaha ogolaanina sideed u ogolaan kartaan in hablihiina dharaarca telefoonada laga qaato hablihiina in guryaha loo dhaco oo la kufsado la qaxiyo madaxdiina la beegsado beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan beel kamida lagu xiro meel ka baxsan gobolada Koonfur Galbeed xamar iyo meel kamida la geeyo waxay tusaale u tahay dulmiga soo socda inuu ka weyn yahay waxa maanta dadkeena haysto walaalaha reer Koonfur Galbeed oo kuwa dibadaha iyo gudaha dalka ku noolow waxaan idinkaga baahanahay garab istaag sax ah inaan dulmigaas ka qaadna dadkeena kala dambeyntii iyo sharafteeni aan lahayn ee aan caalamka iyo Soomaalida ku dhaxalahayn aan dib u soo celino maalmaha soo socda iyo xilliyada ama saacadaha soo socdo ilaahay idinkii war weyn oo ku faraxdaan oo idin farxad gelin doono idinkana qaadi doono dulmigii la idinku sameeyay ayaa wadada ku soo jiro heegan u ahaada ciidamada Koonfur Galbeed soo dhaweeyay meel walba jaha kasto ay kaga imaanayaan magaalada Baydhabo
dhiirigeliya ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya oo rabo inay idinka dulqaadaan kuwa duulaanka ku yimid magaalada Baydhabo burburiyay dawladnimadeena oo markaad dhinac ka eegtaana midab qabiil leh oo qaarkood balaadan aqoonin luqadda ay ku hadlayaan soo dhaweeya garab istaaga caanaha iyo biyaha u geeya waa kuwa dulmiga muddada 30 cishaa la idinku hayay idinka qaadi lahaa sidoo kalena ku biira waxa qudarir cid walba ku dhimata gurigeeda ayadoo cadow duulaan oo banaanka ka yimid iska difaacaysana sidii diinteennu ay sheegtay waa ahlul janno horay ayaa loogu dagaalamay Baydhabo cadow badan oo isku dayay bay reer koonfur galbeed ka hortageen ilaahay idinkii kuwana ma guuleysanayaan reer koonfur galbeed ayaa iskale koonfur galbeed iyagaana maamulanaya iyagaana dawladnimadooda dhisanaya iyagaana u dambeyn doontaa ninkii dhoof ku yimid siday Soomaalidu hore u tiri ayay geeridu dhibaysaa guuleysta walaalayaal